السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد الصوماليات ميل بعد جوكتان هل كان نقلا سعوتان ونقلا جان قاديسان وجناليسك كلا عين تشوي عتي ميديا فضلا أخبارتان عن إذن والنسيشر قريو وأصحابتي إن أسي قدبية إن وحربنا دور قضب وإسساران أو غوزغوسا أما قبانه إن مان لها إن مان تكسو قدبنا دور قضب oo ay ka mid yihiin waxaan ognahay ninka la yiraahdo jarnaal xuud ninka xawaadle maaragtaa sanadka iyo dheeraadkaba fadhiyay maaragtaa haduu la kuuron yahay dawladka magaalada beledweyne colaad fara badan iyo haduu la kuuron yahay hubinta la'aan amni iyo mid badqabeed ee bulshada ku iimaanaysaba intaba maaragtaa hor kacayay maaragtaa hayaan maaragtaa hadalno aan ku soo qaadan doonaa waxaan ognahay jabhad xawaadlu ay leeyihiin oo ninka hor kacayay in mudaaba inay ka taagnaayeen halka iyagoo diidan hadduu alla ku roon yahay hirshabeelle maaragtaa dabcan hirshabeelle maysan diidin hase ahaatee waxay diidanaayeen in abgal uu madaxweyne ka noqdo hirshabeelle keliya qorshahooda intaas ayuu ahaa waxaa la sheegayo nimanka hiraabka ay sheegayaan oo ah in maaragtaa hadduu alla ku roon yahay maaragtaa nimanka uu wixii hiraabkii inay u ka diideen nimanka xawaadle nimankii reer maxamed xawaadle maxamed nimanka loo yaqaano inay ka diideen walaaladood hiraab ama mudulloodba ay ka diideen maaragta hadduu alla ku roon yahay inay la heshiiyaan ay kana yeeleen maaragta heshiiskii maaragta nin maaragta hadduu alla sii baxaya oo hadduu alla mariixaan asagoo farmaajo usoo diray ninka maaragta taliyaha ciidamada dhulka maaragta ninka lagu sheego halka maaragta hadduu alla ku biixi ciidamada xoogga inuu xagga u diray laba habeenna halka ay kula haayeen hadduu alla ku roon yahay wada hadallo kadibna dee uu soo raacay oo maanta barqankii markay ahayd uu ka soo degay maaragta garoonka aadan cadde international airport ninka xawaadle marka hore waan sheegnay waxay diidanaayeen in maaragta abgaalo meeshaas madaxweyne ka noqdo hase ahaatee ayagu waxay lahayn hirshabelle aanu ka cabanaynaa iyo waxbaa sidaa sababtoo ah hirshabelle haddii ka cabanayaan laba goor madaxweyne kamaysa soo noqdeen oo markii ay madaxweynaha ka noqonayeen ayay diidi lahaayeen oo madaxweynayaashii xawaadle ee hirshabelle hogaaminayay waare iyo cosoble cabdullaahi maaragta cosoble maaragta ay hiiraan iimaanayeen iyo beledweyneba markaas ayay ahayd ay u ekayd inay yidhaahdaan waanu diidnay hase ahaatee maanta dee maaragta nin kale uu yimid meeshii maaragta inay diidaan dee waa ku ceeb iyo maaragta iyo waxay ayagu ay dhigteen oo hadduu alla ku roon yahay ay kana shanlay doonaan laakiin qodobka ah in maaragta ay nimanka xawaadle ay nimankii mariixaan ay warbix ka yeeleen maaragta hadduu alla ku roon yahay maaragta maslaxaddii iyo soo jiidkii taa waxaanu dhihi karnaa waxaan uga jawaabi karnaa horta hirshabeelle yaa dhistay oo cali guudlaawo yaa saaray booskaas cali guudlaawo waxaa saaray nin mariixaana isagoo isku gubaya hawiye cid walbana waa og tahay taa oo dee cidna kama qarsoona in farmaajo uu meesha geystay una shaqaynayo xawaadlana dee markii horena waa la qeybiyey oo madaxweyne maaragta abgaalaha ayaa qeybiyey maaragta hadduu alla ku roon hirshabeelle wuxuuna u qeybiyey laba qaybood oo ah caasimadan inay abgaal qaataan madaxweyne ku-xigeenka madaxweynahana ay la tagaan nimanka xawaadle isagoo maaragta raba farmaajo in maaragta hadduu alla ku roon yahay uu abgaal maaragta uu afka maroojiyo ayuu maaragta halkaa wuxuu u dhigay ninkaas warsangeliye maaragta abgaal cali guudlaawo la yidhaahdo ayuu maaragta si uu judgooyo uun wax kale laguma tilmaami karo waa judgooyo uu u dhiganaya abgaal ama hawiyaba ayaa la odhan karaa si maaragta caasimadda maamul goboleedka ugu dhow oo caasimadda maamul goboleedka ugu dhow maaragta hadduu alla ku roon yahay oo jowhar oo 90 kilomitir uu abgaal uga taliyo oo u yiraahdo halkaas ayaa madaxweyne ka tihiin maaragta cali maaragta ninka halka ayay ku dhamaatay qodobkii dabcan waxaanu rajeynaynaa in halka laba qodob ayaa la saadaalinaya in xawaadlo hadda maaragta ama xuudba uu hadda ku yimid mid waa mid oo maaragta in xuud la siiyo xildhibaan ama maaragta dhaqaale maaragta hadduu alla ku roon yahay isaga iyo raggii uu horkacayaba si maaragta halka ay doorasho uga dhacdo qodobka labaad waxa weeyaan hadduu alla ku roon yahay in maaragta hadduu lacalla farmaajo soo laabto qorshaha waxa weeyaan in maaragta farmaajo daarooda markuu madaxweyne kusoo laabto in xawaadle oo hawiye matalaya ra-iisul wasaare laga dhigo taasna ma aqaano say ku suurtageli doonto ma dhici doonta allahu aclam inuu soo laaban doono wax la ogyahay maaha haddaba qorshaha hawshan waxay u taallay xukuumadda uu maaragta horkaco ninka la yidhaahdo maaragta maxamed xuseen rooble uu ra-iisul wasaaraha u yahay shaqadoodii waa gudan waayeen waxaanu ognahay xataa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaaliyinta ninka loo yaqaano xilkaa ninka haya inuu yahay nin xawaadlaa
ninkaa jarnaal maarata jarnaal mukhtaar la yidhaahdo asagin waxa waa ka qaban waayey meesha waxaa ku eedaysan oo ku ciladaysan rooble iyo maarata xukuumaddiisii sababtoo ah meesha waxaa maraya jarnaal ciidan hawshaana dee jarnaal ciidan isma hayne maamul ayaa laga tabanayay maamulkana waxay ahayd in maaragta hadduu alle kuri uu soo garbaxo waana dee dabcan farmaajona halkaa wuxuu ka helay qodob uu ku ololeeyo uu maaragta goordhow waxaa kaloo xusid mudan oo qubanaheena aan raacinaynaa maanta qodobka labaad waxaan ognahay in wasiirka arrimaha dibadda uu soo saaray maalintii xuutiyiintu ay weerarayeen gantaalada ku weerarayeen maaragta Dubai imaaraadka carabta in uu ku soo saaray maaragta hadduu alle kuri wasaaradda arrimaha dibadda beejijkeeda lasoo dhigay la cambaareynayo falkaas uu ahaa mid argagixiso maaragta halkaa ayaanu ogeyn waxaa ka dambeeyey habeenadii xalay ahayd uu ninka la yidhaahdo ra-iisul wasaaraha xafiiskiisii uu soo saaray asagana uu cambaareynayo halkaa haddaba maxaa kalifaya haddii wasiirka arrimaha dibadda uu magacaabay uu sheegay maaragta ninka la yidhaahdo ninka majarteen saacid leeyahay maaragta u ahaa farmaajona marka hore u ahaa la taliyaha amniga qaranka ugu magacawnaa hadduu mar soo saaray oo isaguna magacaabay wasiirka maxaa maanta kalifaya in mar kale uu asaga soo saaro waxaanu dhihi karnaa waa un maaragta hadduu alle ku roon yahay maaragta dhaqaale raadin iyo dowladnimo ku ciyaar iyo wax aan laga faa'iideyn sababtoo ah hadduu wasiirka adigu aad magacaawday maaragta hadduu alle ku roon yahay uu soo saaray maaragta warbixinta adiguna inaad kasoo daba saarto waxba micnaa samaynayso hase ahaatee waxaa meesha ka cad in ra-iisul wasaaruhu wasiirku uusan hoos tagin oo farmaajo hoos tago sidaas lamidana rooble dagaalka farmaajo kala dhexeeya waa mid iska dheeldheela oo cid walba waa arki kartaa sababtoo ah wasiirada farmaajo usoo dhow ayuu xilka ka qaadi lahaa waxba dagaala kalama dhexeeyaan waa faataadhok maaragta hawiyaha uu samaynayo waana saaxiib ayaa la dhihi karaa farmaajo asaga sababtoo ah asaga wuxuu ka qaadi lahaa hadduu xataa uu tabar u waayo taliyayaasha ciidamada oo laga dhiciyo wasiirada maaragta hadduu alle ku ron yahay uu ka qaadi weynaya ma wasiirada waxay ahayd wasiirada inuu ka qaado wasiirada ugu dhow sida arrimaha dibadda qorshaynta hadduu alle ku ron yahay maaliyadda meelaha ugu dhow farmaajo cid walba oo ogtahay ku abtirsato meeshiisa gasha ama xildhibaannimada ka naawilaysa ama u dhow ayay ahayd inuu xil ka qaado hase ahaatee waxaad inuusan maaragta waxba farmaajo la dagaalsanayn maaragta hawiyo uun maaragta uu boor isku qarin iyo beenguur u wado hawiyuhu maadaama iska daacad yihiin umaleeyaan wiilkanagii ayaa maaragta hadduu alle ku ron yahay xelada laga soo saaro waxaasoo dhan waxa weeyaan waa saaxiib ayuu leeyahay maadaama maaragta hadduu alle ku ron yahay uu dhulbaabba asagaba uu ku jiro farmaajona maaragta hadduu alle ku ron yahay uu boobayo dukraastii u boobayaan saddexdii maamul-goboleed iyo intii kale uu magaalada dhigtay akhyaaray qobanayni maalinlaha ee maanta ay bishu ay tahay 19 bisha Janaayo maalinimo Arbaca casar liiqiya waxaan halkaas ayaan kusoo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu